إلهي فشلي دولة تركيا وراءنا مسلم صاحبنا كبت بالينا إلهنا مهد بانو علينا مركز التحال وحان مهد علينا قرنك صوماليات وإيدينتي أهريسي انقلابيين تلحن باري سوجيدي ودولة تركيا ووحول بيننا حين قلب استاغي والدنيا يوردن كهر مري تاسنا مهد بانو علينا وانا كبو علينا وانا اوغو حبلينا aad bay qiiqaali u tahay mar walba si degdega maaragtay in tallaabada ku habboon ama erayga waqtigiisa la joogo in la sii daayo aad ayay u fiican tahay marka la fiiriyo taariikhda islaamkeeda soo maray waxaa jiri jirtay khilaafadii islaamiga ahayd ee turkiga oo dunida muslimka oo dhan xukumaysay inqilaab gaaladu soo abaabuleen ayaa lagu dumiyey على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
ظلمات يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. صوماليا هقول يسطو تركيا هقول يسطو الحوينيس هقول يسطو الحوينة هنقو هقول يسطو صوماليا هقول ليس ركبا والله الشعب الشعب والله العلوة شعب جميل أنا أقول فرحنا إلهي ورحمة الله وبركاته. Ey Afrika'daki kahraman insanları, ey İslam'ın güzel insanları, bugün Türkiye'de meydana gelen ve Türk halkına rağmen yapılmaya çalışan kalkışmayı protesto için buradayız. Ve açık bir şekilde Somali halkının Türk halkına olan desteğini görmekteyiz. ugu horreyntii siyaasi Afrika Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay soo baxan aad noo muujiseen Bizi birbirimize bağlayan bir tek şey var. O da Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu İnnemel mü'minine ihva düsturu. Biz bunun için buradayız ve bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. anagana waxaa jiro shay na ku keexinayo oo ah inama almu'minuun ikhwa inay dadka mu'miniinta yihiin dad walaal ah saas daraaddeed ayaan halkan u joognaa. Yine Yüce Allah, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ümmetim bir vücudun uzuvları gibidir. gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ku-xigeenadiisa culummada sharafta leh akhyaarta kale saraakiisha dadkan ku soo baxay oo muslimiin Soomaaliyeed rag iyo dumarba saxaafadda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaamtaas kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa kulankaani soo baxan uu galladaystay. warka waan soo koobayaa walaalayaal waxaan iskuuliga waxaa weeye annagoo cabbirayna dareenkeena islaamnimo annagoo cabbirayna dadka madluumiinta oo la gardarraysanayo inaan garab istaagno taageerno annagoo cabbirayna dadka daalimiinta ah oo gacanku-dhiiglayaasha ah inaan ka dhannahay oo ka soo horjeedno oo cambaaraynayno. waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo gobolka banaadir iyo dhammaan xukuumaddu ay qaateen oo ah inay cambaareeyeen inqilaabka dhicisoobay. cadowga turkigu ha dhaco madaxweyne xasan sheikh ha guulaysto madaxweynaha turkiga ordigan ha guulaysto wasiirada gaar ahaan wasiirka uu qabtay arrimaha diinta iyo gudoomiyaha gobolka banaadir culumowdiinka shacabka qiimaha badan halkan iskugu yimid golaha wasiirada iyo baarlamaanka dadka halkan nagala jooga dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaa farxad maanta noo ah in isku day fashilmay oo khayaana ay ku jirtay ay ka guulaysteen walaalaheenna dalka turkiga shacab iyo xukuumadda. taasina waxay namuudaj iyo tusaalahay u tahay awoodda shacabku inay awood walba ka sarrayso, awoodda shacabku inay xabbadda ka sarrayso, awoodda shacabku inay muruqa iyo aragtida iyo dhinac walbaahi awoodda ugu sarraysa koonka ay tahay, awoodda shacabku inay badaha qahri karto, awoodda shacabku inay tahay awooddii culamada Soomaaliyeed ururada bulshada kala duwan madaxda tiirka bacda saxaafadda daaweynta Soomaaliyeed xukunta Soomaaliyeed ee gobolka banaadir hortiina taagan dhammaantiin waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaantaa kadib muddo badan ayaa la taagnaa haddana inaan dhaqaaqno ayaan rabnaa u dhaqaaqno dhanka safaaradda annagoo u muujinayno shucuurta inaan la wadaagayno marka waxaan nii rabay
ragga hadle ayaa ii yiray wax aniga ka duwanoo sheegaya ma laha laakiin waxaan uga mahad celinayaa shacbiga degan gobolka banaadir magaalada muqdisho siday u muujiyeen shucuurkooda iyo taageeradooda ay ku cambaaraynayaan afdembigii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka turkiga Thank you.